بسم الله الرحمن الرحيم. aan wax ka baran weydiintan ah what are managerial functions of HR. maamulka waaxda shaqada ee shaqaalaha waa xubin ka tirsan maamulka guud ee shirkadda. sidaas oo ay tahay waxaa laga rabaa maamulka waaxdan inay la imaadaan dhaqangeliyaana howlaha maamulka ee waaxda sida qorsheynta, abaabulidda, hagidda iyo dib u eegisna ay ku sameeyaan waaxda. waxaanan uga hadlaynaa howlahan laga rabo mid haddaan ku hormarno kow qorsheynta. waa shaqada ugu horeysa howlaha maamulka ee waaxda, waxaana laga rabaa in ay sameeyaan cilmi baaris ku aadan waa maxay tirada shaqaalaha looga baahan yahay waaxyaha kala duwan ee shirkadda. shaqada ay qabanayaan shaqaalahaas waa maxay, sidoo kale waa maxay xirfadda laga rabo in ay lahaadaan shaqaalaha loo baahan yahay si ay shaqadooda u qabtaan. sidoo kale halkeebaa laga helayaa shaqaalaha, ma wadanka gudihiisa mise dibadda, iyo wixii la halmaala oo la xiriira qorsheynta waaxda shaqada iyo shaqaalaha. labo, abaabulid. waxa ayna la xiriirtaa in loo qaybiyo shaqada howlwadeennada kala duwan ee shirkadda, in la caddeeyo awoodda uu qof waliba leeyahay, waa maxay mas-uuliyadda iyo shaqada laga rabo qof waliba, sida ay iskula shaqaynayaan howlwadeennada kala duwan iyo waaxyaha kala duwan ee shirkadda ka kooban tahay si loo gaaro ujeedada guud ee u degan shirkadda. saddex, hagidda ama dhiirigelinta. waa shaqo kale oo laga rabo waaxda shaqada iyo shaqaalaha, oo waxaa laga rabaa inay dhiirigeliyaan howlwadeennada kala duwan ee shirkadda, laguna dhiirigeliyo inay shaqadooda u gutaan si joogto ah, oo mar waliba waa in loo dejiyaa hiigsi cusub si aanay uga caajisin shaqada. afar, waa dib u eegis, oo ah in la isbarbar dhigo sida uu qorshihii ahaa iyo natiijada ka soo baxday markii shaqada la qabtay waa maxay. waxaa sidaa loo yeelaana oo si haddii ay isleeyihiin waa in maamulka waaxda ay hore u socdaan, balse haddii ay soo baxdo in qorshaha iyo shaqada la qabtay ay kala duwan yihiin, waa in maamulka waaxda ay dib u eegis sameeyaan, ayna ogaadaan meesha ay wax ka qaldameen. oo tusaale, tababar ayaa loo qabtay qayb ka tirsan shaqaalaha, ayaa waxaa la filayay haddii aqoontaa la baro in waxqabadkooda sare u aadayo, balse sidii la filayay ma aysan noqon oo shaqaalihii waxqabadkoodii waa jugjug meeshaada joog. haddaba waa in la ogaadaa meesha ay wax ka qaldameen si mustaqbalka looga fogaado dhibkaasoo kale inuu dhaco ama inuu dib usoo laabto. ogow shaqooyinkii aan ka soo hadalnay oo dhan waa in uu qabtaa qofka maamulka u haya waaxda shaqada iyo shaqaalaha. xog dheeraada oo ku saabsan qeexidda shaqada iyo shaqaalaha ama HRM fadlan ka dhegayso lifaaqa hoose oo aan hadda ka hor kaga soo hadalnay. mahadsanidin, waa inoo markale haddii rabbi idmo.